yuusufna waxaa la keenay masar kuwii reer ismaaciil oo isaga halkaas geeyna waxaa gacantoodii ka iibsaday nin masri ahaa oo la odhan jiray Potifar oo fircoon sarkaal u ahaa oo madaxii waardiyaashiisa ahaa rabbiguna waa la jiray yuusuf wuxuuna ahaa nin liibaansan wuxuuna joogi jiray gurigii sayidkiisii masriga ahaa sayidkiisiina wuu arkay in rabbigu liibaaniyey wixii uu sameeyey oo dhan isaguna raalli buu yuusuf ka ahaa yuusufna waa u adeegi jiray oo wuxuu isagii ka dhigay kan gurigiisa u sarreeya wixii uu haystay oo dhanna gacantiisuu wada geliyey oo waxay noqotay in wakhtigii uu ka dhigay kan u sarreeya gurigiisa iyo wixii uu haystay oo dhan uu rabbigu gurigii kii masriga ahaa u barakeeyey yuusuf aawadiis wixii uu guriga iyo beertaba ku haystay oo dhanna barakada rabbigaa saarnayd wixii uu lahaa oo dhanna yuusuf gacantiisuu kaga tegey waxbana kama ogayn wixii uu hayey wixii uu cuni jiray mooyaane yuusufna aad buu u quruxsanaa wuuna suurad wanaagsanaa oo waxay noqotay waxyaalahaas kadib in naagtii sayidkiisu ay fiirisay yuusuf oo ay ku tidhi kaalay ila jiifso laakiinse wuu diiday oo wuxuu ku yidhi naagtii sayidkiisa bal eeg sayidkaygu waxba kama oga waxa aan guriga ku hayo wixiisii oo dhanna gacantaydu wada geliyey oo weliba gurigan mid aniga iga weynu ma joogo oo isaguna waxba igalama hadhin adiga mooyaane maxaa yeelay adigu waxaa tahay naagtiisii dee haddaba sidee baan u samayn karaa xumaantan weyn oo aan ilaah ugu dembaabaa oo waxay noqotay in kastoo ay maalinta ka dambaysa la hadlaysay yuusuf inuu maqli waayey inuu la jiifsado ama uu la joogo iyadii oo waxay noqotay haddaa oo kale inuu gurigii galay inuu shuqulkiisii qabsado nimankii gurigana midna gudaha ma joogin kolkaasay qabsatay dharkiisii oo waxay ku tidhi ila jiifso isaguse dharkiisii gacanteeduu kaga tegey wuuna cararay oo baxay markay aragtay inuu dharkiisii gacanteeda kaga tegey oo uu dibadda u cararay ayay u yeedhay raggii gurigeeda oo ay la hadashay oo waxay ku tidhi bal eega ninkaygu wuxuu inoo keenay nin cibraani ah inuu inagu majaajiloodo wuxuu igu soo galay inuu ila jiifsado aawadeed markaasaan cod dheer ku qayliyey oo markuu maqlay inaan codkaygii sare u qaaday oo aan qayliyey ayuu dharkiisii iiga tegey wuuna cararay oo baxay dharkiisiina way is-agdhigtay ilaa uu sayidkiisii guriga yimid kolkaasay hadalkan kula hadashay isagii oo waxay ku tidhi addoonkii cibraaniga ahaa oo aad inoo keentay ayaa igu soo galay inuu igu majaajiloodo oo markaan codkaygii sare u qaaday oo aan qayliyey ayuu dharkiisii iiga tegey oo uu dibadda waa cararay markii sayidkiisii maqlay hadalkii naagtiisa oo ay kula hadashay isaga iyadoo leh addoonkaagii sidan buu igu sameeyey ayuu cadhooday markaasaa yuusuf sayidkiisii qabtay isagii oo wuxuu geliyey xabsigii ahaa meeshii maxaabiista boqorku ku xidhnaayeen oo isna halkaasuu ku jiray xabsigii gudihiisa laakiinse yuusuf waxaa la jiray rabbiga wuuna u roonaaday kii xabsiga hayeyna raalli buu uga dhigay kii xabsiga hayeyna wuxuu yuusuf gacanta u geliyey maxaabiistii xabsiga ku jirtay oo dhan oo wax kasta oo halkaas ku sameeyeenna wuxuu ahaa kii sameeyey kii xabsiga hayeyna ma uu eegi jirin waxa isaga gacantiisa ku jira maxaa yeelay rabbigaa la jiray isaga wixii uu sameeyeyna rabbigu waa liibaaniyey